Waqti dheer ka hor waxaa jirtay naag sixiroolad ah oo ku noolay tuulo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa tuulada ka soo laabtay nin magaalada magac ku lahaa. Dhaxda ayayna u istaagtay. Waxa uu ku yiri naagtii sixirooladda aheeday, maxaad iga rabtaa? Waddada ii bannee. Waxa ay ku tiri, maxaan waddada kuugu banaynayaa? Waqti badan ayaan ku sugayay, haddana waxaan rabaa inaan ku kaxaysto. Gacanta ayay qabatay, dhulka ayayna ku jiiday. Tuulada ayay soo dhex marisay, isagana waxa uu dhahayay badbaadiye, badbaadiye, badbaadiye. Dadka tuulada jooga indhaha ayay ka fiirsanayeen, waxbana uma ay qaban karin. Balse waxaanan ka harin saci uu watay ilaa ay geynaysay meesha ay u wadatay. Nin tuulada deganaa ayaa yidhi, naagta habeen walba nin ayay naga kaxaysanaysaa, waa inaan iska qabannaa. Maalintii dambe waxaa loo imaaday ninkii tuulada madaxda ka ahaa, waxaana loo sheegay wixii habeen hore dhacay. Ninkii tuulada xukumayay waxa uu yiri, naagtaas sixirooladda waxa ay leedahay weji aad u cabsi badan, qof hor istaagi karana malaha. Nin ka mid ah nimankii meesha taagnaa ayaa yiri, waxaan samaynaynaa weji aad u argagax badan oo wejigeeda u eg. Mid kale ayaa soo booday, waxa uuna yiri, sidee baan u samaynaa weji cabsi badan? Marka uu soo booday ayuu yiri, waxaan samaynaynaa qolof, 2 qof ayaana gelayso. Ninkii tuulada madaxda u ahaa waxa uu yiri, arrinkaas waa arrin fiican, waa inaan ku dhaqaanaa sida ugu dhaqsiyaha badan si aan iskaga badbaadino naagtaas mar walba nimanka nagala baxayso. Habeenkii markii la gaaray ayaa waxaa imaaday 2 nin, waxaana loo geliyay qolofkii loo diyaariyay. Nin meesha taagnaa ayaa yiri, waxaad u tihiin reer aakharaad, waa uuna ku qoslay. Habeenkii saqda dhex markii la gaaray ayaa qolofkii ay sameeyeen oo 2 nin ku jirtay ayaa waxa ay dhigeen bannaanka guryaha si ay uga cabsi geliyaan danqalasho. Dadka tuuladana waxa ay ahaayeen kuwo ka fiirsanaya daaqadahooda oo la yaaban sida ay wax u dhici doonaan, ma isu soo boodi doonaan mase labadooda mid ayaa carari doona. Qaybtii koowaad ee sheekada halkaas ayay noogu eg tahay. Waxaan kasii ambaqaadi doonaa qaybtii 2 mar dhow insha Allahu tacaala. Si aad ula socoto qaybta 2, fadlan channelka subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacdo